gudoomiyaha rugta ganacsiga warshadaha iyo beeraha Soomaaliland Maxamed Shukri Jaamac ayaa sheegay in kulamo maalmihii ugu dambeeyay u socday ganacsatada ku xidhan dekada Berbera ay isla garteen in aanay qaadi karin culayska ay maamulka dekada Berbera ay ku kordhiyeen alaabihii iyo waliba maciishadii ka soo degi jiray dekada Berbera. maalmahan halka shir baan u fadhinay waxay ganacsatadu kaga tashanayeen culays kaga yimi badeecadihii dekada ay kala soo baxayeen dekadaha culays soo saaray maamulka dekadu oo ay ganacsatadu u arkeen in aanay badeecadii suuqii ka tartami karahayn culayskaas oo haduu sidaa ku hirgalo halka xafiiska ganacsatadu yimaadeen cabashadaas ay soo bandhigeen maamulkoodii markaa uu nahay aan isla eegnay arrintii culayskaas inuu badan yahay oo loo baahan yahay inay ganacsatada iyo dawladdu iska arkaan oo dawladdu ay dhageysato cabashada ganacsatadeeda. sidoo kale gudoomiyaha rugta ganacsiga iyo xubno ganacsato ah ayaa waxa ay baaq u direen madaxweynaha Soomaaliland oo ay ka codsadeen in arintooda hoos loo eego. madaxweynaha iyaga aan dooranay ee codka iyaga iyo cuudka iyaga meesha ku waxaan u jeedinay madaxweyne raggaagi baan nahay waxaan doonaynaa in loo dhaganugulaado in la dhageysto. marka waxaan codsanaynaa oo dawladda ka codsanaynaa maadaama waqti socdo inaan waqtiga la sii fogeynin in arinta xal laga helo laga gaaro la wada hadlo. ganacsadii maanta culayska soo kordhay ee xagga ka yimid dekada inuu mideeyay telefishinka caalamiga Hong Cable oo weydiiyay su'aal dulucdeedu ahayd hadii ay u hirgasho in laga dhimo taariifada ay ka cabanayaan bal in ay iyaguna dadweynaha hoos uga dhigayaan qiimaha maciishada oo halkii ugu sareysay maalmihii ugu dambeysay marayay ayaa waxay kaga jawaabeen haduu hebel sidoo halka ay ku adkayso aniga doonayeen alaabteedu horu iibsato dabadna halka dollar markaaba waa ridaya dabadna tartamaanu ku wada jirnaa annagu si aan loo dareemeyn ayaanu qiimaha u ridnaa. Najadan Unaye Hong Cable TV Hargeysa.